بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ورحمة عبد القادر محمود جمعالة. أنا جبر سوماليات وجامعة كسر من سدل السودان وكسر تخصصي علم نفسي سيكولوجيا عروضة قيب عروضة عادية تعليم قبل المدرسة سكول كهورتيس قيب عروضة باهظة جاك أهله سبيشال نيد إن مقدشوا عن كفرناي حرونتان أو لها حرونت المستقبل وحيكر جريسة عروضة عادي روضة حنانة عادية هي عروضة باهظة جاك أهله waxaan u qabanaa marka caruurta waxaan barnaa quraanka kariimka dhanka diiniga hadaan ka hadlo quraanka kariimka barnaa axaadiista aan barnaa ahkaamta aan barnaa ducooyinka aan barnaa tuhfat al-atfal aan barnaa nuuraniya aan barnaa hingaadi aan barnaa akhriska aan barnaa qoraalka aan barnaa dhanka maadiga hadaan u leexdo waxaan barnaa xisaab soo carabi soo ingiriis waxaan kaloo barnaa xuruuftii iyo abc iyo alif baa waxaan kaloo barnaa science-kii iyo si fudud oo ilmaha maskaxdooda qaadanaysa haddaan ka hadlo dhanka social ijtimaaciga waxyaabo badan aan barnaa ixtiraamka waalidka aan barnaa waxaan barnaa ixtiraamkii dariska waxaan kaloo barnaa macalinka sida looga dambeyn lahaay ilmaha oo haddaan ka hadlana oo jooga xarunta almustaqbal qaybta special needska ama qaybta caruurta baahida gaarka ah leh waxaa joogaan macallimiin oo mutakhasisiin oo loo training gareeyay qaybtaas baahida gaarka ah leh noocyadaan kala qaadano waa autismka tawaxudka ilmaha qabo ilmaha oo qaba fartal xaraka ama hyperactivity caruurta aan fadhiisanin waxaan kaloo aan qabanaa caruurtan oo down syndrome kala dhaha aan qaadanaa iyakana iyo caruurta akhriska iyo qoraalka oo ku adag ama maskaxdooda dambaysa waxaan kaloo qabanaa adeegyo caafimaad oo free iyona bishii hal mar aan qabanaa waxaan kaloo qabanaa ilmaha hadalka ku adag hadal aan barnaa qayb oo waxaan leenahay speech therapy oo caruurtaas aan ku barno hadalka iyo xuruuftiisa usoo saari lahaayeen iyo dhawaaqyada sida loo soo kala bixi lahaayeen waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan xaruntan almustaqbal oo caruurtaas labada noocba geergareysa oo tababarta oo wax qabta iyagoo kaashanaya macallimiin oo takhasus u leh oo dibadda kala imaaday oo u tababaran ilmahaas si u xanaaneyn lahaayeen waxaa kaloo jirto in xarunta ay bixiso 3 waqti oo cunto waxaa kaloo jiif ay leeyihiin subaxii ay soo galaan ay galabkiina ilmaha ay ka baxaan xarunta almustaqbal waxay ku taalaa isgoyska KBB wadada shaqaalaha oo idin ku soo dhaweynaynaa bulshada Soomaaliyeed ku soo dhawaada xarunta